ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay maalinkii 12aad magaalooyin badan oo ku yaala dalka Mareykanka wali waxaa ka sii socda dibadbaxyada ka dhanka ah dilkii foosha xuma ee booliiska dalka Mareykanka ay u geysteen George Floyd oo ahaa nin haystay dhalashada dalka Mareykanka balse asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika. wararkii ugu dambeeyay coronavirus iyo saameynta dunida uu ku leeyahay gaar ahaan waxaynu diiradda saari doonaa wadamada Afrika. Kenya oo wax ka bedeshay bandowgii saarnaa dalkaasi iyo Soomaalida oo si weyn looga farxiyay. Sidoo kalena waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixino kale oo ku saabsan dawladda Masar waxa ay ku dhawaaqday in Khalifa Haftar uu ogolaaday xabad joojin xilli maalmihii ugu dambeeyay dhul badan ay ka qabsadeen ciidamada dawladda qaramada midoobay ay aqoonsan tahay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka uga bogan doontaan. waxaa soo saaray idalana socodsiinaya anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Abshir Cabdi Jaamac ayaa igala qayb galaya tabinta barnaamijka. Maxamed Dalaal waa uu farsameynaya. waa mar kale iyo barnaamijka Baryasamo qaybtiisa labaad. kale waxaad ka baradana baahi kaama goysay balanteenu waa shaqo. heestaasi waxa daafur ay u tahay barnaamijka Baryasamo qaybtiisa labaad oo aad kala socotaan KNN. haddii aynu ka hormarno maalinkii 12aad waxaa dib uu ka kacaya ama olol uu ka kacaya magaalooyin badan oo ku yaala dalka Mareykanka iyadoo ay isku soo baxeen kumanaan kun oo dad ah kuwa oo diidan fal booliiska dhamaadkii bishii aynu ka soo gudubnay ay ku qaarijeen George Floyd oo ahaa nin haystay dhalashada dalka Mareykanka balse asal ahaan Afrika ka soo jeeda. booliiska ayaa lagu cambaareeyay dilkaasi foosha xun isla markaana maalinba maalinta ka dambaysa tirada dadka soo baxa ka qayb galaya ayaa sii kordhaysa. arinta uga hadalhaynta badan dalka Mareykanka isla markaana warbaahinta ay soo bandhigayaan ayaa waxa ay tahay in duqa magaalada Washington uu ku biiray dadka dibadbaxyada sameynaya waxaana uu u sheegay in ciidamadii anshax xumada ku dhaqaaqay ay gabi ahaanba magaalada ka riixeen isla markaana uu isaga garab taagan yahay dadka dibadbaxa sameynaya. maayarkan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in xilligan la joogo xilligii guud ahaan dadka reer Mareykan ay u midoobi lahaayeen koortaga falalka la xiriira cunsuriyadda. maayarkan ayaa sidoo kale waxa wargeyska Washington Post uu xaqiijiyay in uu qayb ka yahay dadaalada ku saabsan yareynta falalka la xiriira midabta koorka waxaana uu cadeeyay in ciidamada magaalada ku sugnaa ay ku guuleysteen iyaga oo dibadbaxayaasha ah in ay ka saaraan guud ahaanba magaalada. Mr. Bowser ayaa sidoo kale waxa uu u sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka in uu la yimaado isbedel ku saabsan sidii loo yareyn lahaa falalkan aadka u soo laalaabtay ee Mareykanka sumcaddii dunida uu ku lahaa wax ka bedelaya. sidoo kale waxaa la sheegayaa in magaalooyin dhowr ah oo ay New York qayb ka tahay ay kordheen tirada dadka dibadbaxa sameynaya. Trump weli wax hal ama uusan u helin marka loo eego dibadbaxyadan iyo sida ay u socdaan. maalinba maalinta ka dambaysa dadka waxa ay soo qaadanayaan boorar ay ku muujinayaan dilkii George Floyd inuusan ahayn mid kaliya isaga loo geystay ee la dilay guud ahaanba dadka madowga ah ee muwaadinimada Mareykankana haysta. waxaa sidoo kale Trump ay ku tilmaamayaan nin aan fiyoobeen iyaga oo sidoo kale ka codsanaya guud ahaanba madaxda Mareykanka inay ku garabsiyaan inay gudaha u galaan aqalka cad ee looga armiyo dalka Mareykanka. ciidamadii ugu badnaa ayaa sidoo kale la geeyay hareeraha aqalka cad ee dalka Mareykanka halka Trump la sheegay in qaybaha ugu dambeeya dhismahaasi la dejiyay si ammaankiisa loo sugo. kumanaan kun oo dad careysan ah ayaa waxa ay gubeen saacadihii la soo dhaafay calanka Mareykanka iyagoo sidoo kale sheegay in haddii dawladda aysan waxba ka bedelin cabashadooda ay u muuqato in xaaladda ay faraha ka sii bixi karto. ciidamada ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa in iyada oo dibadbaxyadan ay socdaan mararka qaar ay u geysanayaan falal jirdil ah dadka dibadbaxyada ka qayb galaya kuwa oo gubaya taayaro isla markaana mararka qaar dib qabadsiinaya calanka dalka Mareykanka. hogaamiyaasha inta badan qaybta ka ah dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Trump iyo kuwa horey u soo maamulay dalka Mareykanka ayaa isku aragti ka qaatay in madaxweyne Trump uu ciidan u adeegsado dadkan waxaana ay sheegeen haddii uu isku dayo adeegsiga militariga intaasi ay noqon doonto fashilkii ugu dambeeyay ee Trump uu ku dhaqaaqo isla markaana ay wax u dhimi karto sumcadiisa ah rajada uu ka leeyahay in talada uu dib ugu soo laabto.
waxaa haysata Trump laba daran mid dooro. Mid waxa ay tahay in uu kala kulmayo cambaareyntii ugu cusleed mas'uuliyiin xifaaltan dhinaca siyaasadda ah uu kala dhaxeeyo, halka sidoo kalena culayska dhinaca dibadbaxyada ay ku sii kordhayaan xilli shaqooyin muhiim ah oo dowladda xafiisyadeeda loogu qaban jiray shacabka ay istaageen guud ahaanba 12 maalmood ee ugu dambeeyay. sidoo kale warbaahinta qaar waxa ay qabanayaan doodo ku saabsan sida Trump uu u wajahayo xalinta arrintan iyo wax laga baran karo siyaasadda Trump ee dhabta ah. dadka qaar ayaa ku doodaya in Trump markii horeba uusan ahayn siyaasi u bisil hogaaminta Mareykanka, balse nasiibka uu saaciday, isla markaana dadka reer Mareykan ay iminka fursad u haystaan in ay iska bedelaan maadaama doorashada ay soo dhowdahay. laakiin madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa culayskii ugu badnaa uu kala kulmayaa baraha bulshada, gaar ahaan shirkadaha Twitter iyo Facebook oo mar walba dib u eegaya fariimaha uu dadka dibadbaxaya kula wadaagayo barahaasi. shirkadda Facebook waxa ay iminka bilowday in ay dib u eegis ku sameyso guud ahaanba qoraalada uu soo dhigo Trump ee la xiriira xaaladda iminka ka taagan dalka Mareykanka. Mark Zuckerberg oo ah madaxa ugu sareeya shirkadaasi ayaa waxa uu shaaciyay in ay wax ka bedeleen siyaasadda la xiriirta arrinta ku saabsan midabta koorka, isla markaana madaxweynaha Mareykanka uu soo geliyay 12 maalmood ee ugu dambeeyay barta uu ku leeyahay Facebook arrimo ka dhan ah bini'aadanimada ama jinsi faquuq la xiriira, taasi oo ay shirkadda Facebook qorsheynayso in gabi ahaanba hawada ay ka saarto. toddobaadkii aynu ka soo gudubnay shirkadda Twitter ayaa waxa ay Trump u dirtay fariin ku saabsan in dib u eegis lagu sameynayo guud ahaanba qoraalada uu soo dhigo, isla markaana daqiiqad ka badan ay qaadan karto in la aqriyo qoraalka uu bulshada kula wadaagayo barta Twitter-ka. Trump ayaa ka carooday tallaabadaas isagoo sheegay in bahdilaad ay tahay, isla markaana uu joojin doono isticmaalka baraha Twitter-ka iyo weliba Facebook. shirkadda Twitter ayaa sheegtay in marnaba aysan ogolaanin in hogaamiye colaad horinaya uu adeegsado bartooda, iyaga oo sidoo kale si joogto ah ugu diraya digniin ku saabsan in qoraalkiisa la hubinayo kadibna loo ogolaanayo in dadka uu la wadaago. tani waxa ay ceeb ku noqonaysaa Trump iyadoo madaxdii horey u soo martay dalka Mareykanka gabi ahaantoodba ay ahaayeen kuwo si caadi ah u isticmaalayay baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter. waa tahay weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Baryasamo qaybtiisa labaad oo KNN 88.0 aad kala socotaan. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad la socotaan. markana waxaynu eegaynaa dowladda Masar waxa ay war ka soo saartay in Khalifa Haftar oo ah markaas generaalka dagaalka kula jira xukuumadda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay fadhigeedu yahay Tripoli in uu si rasmi ah u ogolaaday in uu wada hadal galo xilli maalmihii ugu dambeeyay dagaal culus uu kala kulmayay ciidamada dowladda Tripoli iyaga oo goobo muhiim ah gacanta ku dhigay. warbixintan waxaa isha ku hayay Abshir Cabdi Jaamac oo stuudiga igula sugan. Abshir, sida wakaaladaha wararka ay wax uga qorayaan warbixinta ku saabsan Masar iyo Khalifa Haftar warka ay ka soo saartay wada hadal ku saabsan. aad baad mahadsan tahay Maslax Bukur Xaaji. madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax al-Sisi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar ayaa waxa uu sheegay in Khalifa Haftar uu ogolaaday xabad joojin ka dhaqangasha wadankaasi. waxaan u sheegayaa qaramada midoobay iyo ururada danaya nabadda in Khalifa Haftar uu si toos ah u ogolaaday xabad joojin ka dhaqangasha dalka Liibiya, ayuu yiri hogaamiyaha dalka Masar Cabdifataax al-Sisi. waan soo dhaweynayaa in labada dhinac ay aqbalaan xabad joojinta. waxa uuna sheegay in dalka Liibiya ay rajeynayaan inay ka dhalato nabad, ururada isku haya siyaasadana ay ka heshiyaan. 8 bisha Juun oo ku beegan maalinimada bariya ayaa lagu wadaa inay si toos ah u dhaqan gasho xabad joojinta labada dhinac ee dalkaasi Liibiya isku haya. ciidamada dowladda Liibiya ee qaramada midoobay ay aqoonsatay ayaa waxa ay magaalooyin badan ka qabsadeen jarnaalka mayalka adag ee Khalifa Haftar. waxa ayna kula dagaalameen meelo ka baxsan caasimadda dalka Liibiya kuwaasoo ay ka saareen magaalooyin badan, waxaana ciidamada xusid mudan in ciidamadaasi qaranka Liibiya ay taageerayaan waa dalka Turkiga kaasoo gacan weyn ka siiyay dhinaca militariga.
ciidamada waa dalalka Masar, Imaaraadka iyo Ruushka ayaa iyana waxay si toos ah u taageeraan Jenaraal Khalifa Xaftar kaasoo ciidamada Liibiya meelo badan ka qabsay oo waliba caasimadda khalkhal geliyay. ciidamada uu hogaamiyo ee lagu magacaabo Jenaraal Khalifa Xaftar ee uu hogaamiyo ee lagu magacaabo Libyan National Army ayaa waxa ay ciidamada qaranka Liibiya ka qabsadeen magaalooyin badan tan iyo markii dalka Liibiya ay ka bilowdeen dagaalada sukeeye ee la dilay hogaamiyihii dalka Liibiya Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011 ayaa dalkaasi waxa uu la galay dagaalo ahliya oo faraha la galay kaasoo ay iskaga soo jeedaan ururo hubeysan. aad baad u mahadsan tahay Abshirow. haddii aynu egno qaybaha dambe barnaamijka anagoo kusii siqayna warbixinada la xiriira dhinaca Afrika iyo coronavirus waxaa la sheegayaa in weli jahwareer ay ku jirto dowladda Madagascar oo horey u soo saartay daawo ay sheegtay in lagu daaweyn karo cudurka coronavirus. wasiirka waxbarashada ayaa laga ceeriyay shalay shaqada kadib markii uu ku amray caruurta in ay isticmaalaan nanaca, iyadoona sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee saaka laga qorayo dalkaasi ay sheegayaan in madaxweynaha Madagascar iminka uu qorsheynayo in wasiiro hor leh uu shaqada ka eriyo sababo la xiriira iyaga oo baraha bulshada ku baahinaya aragtiyo ku saabsan daaweynta cudurka coronavirus oo wasaaradda caafimaadka dalkaasi aysan uga dambeyn. Madagascar ayaa horey u sheegtay inay hayso daawo rasmi ah oo wax looga qaban karo coronavirus dadka uu ku dhaco isla markaana ka hortag u noqon karta dadka uusan weli ku dhicin. waxaa horey ay u siisay dowlado badan oo Afrikaan ah oo ay ugu horeyso dowladda Koonfur Afrika, iyadoo dhowr diyaaradood laga dejiyay garoomada waaweyn ee dalka Koonfur Afrika. sidoo kale waxaa jira dalal badan oo coronavirus iminka la dhibaatoonaya, waxaana ka mid ah dalka Kenya oo madaxweynaha dalka Kenya oo la hadlay shacabkiisa uu sheegay in markaasi isbedel xoogaa ah lagu sameeyay bandowgii saarnaa dalkaasi oo bilaabanayay 7 fiidnimo isla markaana ku ekaa 5 habeenimo. waxaana Uhuru Kenyatta uu u sheegay shacabkiisa in halkii 7 fiidnimo uu bilaabanayay bandowga la geeyay 9 fiidnimo isla markaana halkii uu ku dhamaanayay 5 habeenimo la geeyay 4 habeenimo. wuxuuna sheegay in dadka uu soo ridanayo cudurkan weli ay badan yihiin, sida daraadeedna qof walba ay qasab ku tahay in markaasi uu xirto waxyaabaha afka iyo sanka lagu xirto iyo waliba gacmo gashi si loo badbaadiyo in dalka uu ku sii faafo cudurkan. sidoo kale arinta sida weyn loo wada sugayay ayaa waxa ay tahay oo wakaaladaha wararka Kenya ay qorayaan in madaxweynaha uu ku dhawaaqay in guddi loo saaray furista goobaha cibaadada isla markaana guddigaasi muddo 7 ay haystaan inay ka soo warbixiyaan habka goobahaasi loo furi karo iyo sida dadka ay isugu yimaanayaan. waxaana gebi ahaanba xiran kaniisadaha iyo masaajida xilli laga cabsi qabay in cudurkan uu ku sii faafo guud ahaanba dalka Kenya. tallaabadaasi aad ayaa loo soo dhaweeyay. xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii magaalada Nairobi ayaa laga qaaday xayiraadii. maanta wixii ka dambeeyana dadku waxay u ogolaanayaan ciidamada ammaanka inay soo galaan xaafadda Islii ay ka dukaameystaan isla markaana ay ka bixi karaan oo magaalada inteeda kale ay tagi karaan. muddo ka badan bil ayaa Islii waxa saarnaa xayiraad taasi oo u muuqata in lagu xakameynayay cudurka kiisaska laga helayo xaafadaasi oo aad u sii kordhay. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ay qorayaan wakaaladaha wararka Afrika waxaa ka mid ah in dowladda Uganda ay qorsheynayso in isbedel lagu sameeyo xanibaadaha saaran dalkaasi. shacabka walaac xoogan ay ka muujinayaan sida ay saameynta xoogan ugu yeelatay xanibaadaha dowladda ay saartay. waxaana madaxweyne Yoweri Museveni la filayaa marka ugu horeysa ee shacabkiisa uu la hadlo in isbedel weyn uu ku sameeyo xayiraadaha inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalkiisa saaran. dad badan ayaa halis ugu jira in macluul ay ku soo wajahdo guryahooda. dadka Ugandana waxa ay yihiin dad ku tirsan soo dhacsashada nolol maalmeedkooda intooda badan. warbixintaas ayaa ugu dambeysa barnaamijka Bareysamo qaybtiisa 2 oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maslax Abukar Xaaji. waxaa dhinaca tabinta igala qayb galay Abshir Cabdi Jaamac. Maxamed Dalaal ayaa farsameynayay. inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo. subax wanaagsan.